markan waxaan jeclahay in aan laba kelmadood siiyo xogeyaha koowaad ee safaaradda jamhuuriyadda midnimada qaran ee dalka Soomaaliya ay ku leedahay dalka Mareykanka Mr. Umar Jamal soo dhawow Umar Jamal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي اللي أوران هذا واللي يري رنتي أني وهذا الترموية وحام قدري كرو مجران سدح ذا موادين أو برلمان كوجرا وحن كقيب قال يا سود دوين تو ذا كان وسود دوين أيو وقلنا ما حد علينا يا رنتي هاوشة أي قبتان iyo midda sugaysaba labadaba inay uu Ilaahay u fududeeyo iyo odayaasha halkan ka hadlay marka anu waa imid New York ayaan jiray marxaladda waddanka ku sugan yahayna waxaan u maleynayaa qof moogan inuusan jirin waxaana meesha ka maqanaa moodaa dhalinyarada fahamkooda oo runtii ku salaysan waaqaca dhabta ah oo waddanku ku sugan yahay in amoodid weli inuusan gaarin meeshii loogu talagalay runtiina dhalinyarada waxay u badan yihiin qurba joogta dhalinyarada Europe joogta kuwa North America jooga marka I hope in dhalinyarada laftigooda kaalintii loo baahnaa maxay la farkali fool ma dhaqayso ma u maleynayo marxaladda waddanku ku sugan yahay hadda xaaladda hadda aan ku jirno waa jirtaa rajooyin badan in ay ka dhawaajinayaan waana wax jira xaqiiqdii maxaa yeelay marka bini aadanka ay marxaladaha ay ku jiraan ay fiirinayaan hadba waxay ku fiiriyaan marxaladda ay ku jireen iyo midda ay galeen in relative ay ku fiiriyaan midda ay marxaladaas ay galeen xataa hadday laftigeeda ay wajigeeda fiicnayn laakiin tay ka soo baxeen haddii ka sii daran tahay waxay leeyihiin wallahi horumar baan gaadhay rajaa jirta ayadoon weli aamudid in waxyaabo badan ay dhiman yihiin marka waa run waaqac waddan ku sugan yahay uu ku sugnaa sanadii la soo dhaafay iyo hadda tuu uu galay waa laba waji laakiin micnaheeda ma ahan in hawshii dhamaatay midda kale oo muhiim ah oo laba arrin ah waxaa xafladaha la sameynayaa qarash baa la galayaa waxaa la leeyahay waana la ictiraafay runtii aniga waxaan is leeyahay haddaadan idinka is ictiraafin ictiraaf qof kale ictiraafay waxba idinma taraayo marka Hillary Clinton ayaan ictiraaftay ayaa hol inta loo qabsado gurbaano lagu tubanayaa wax aqli galay ma ahan runtii anima ma waxay isaadaa ma dadka waalan mis intee tashteen bay rabaan in adigu waalan waxa ku soo hartay arinta federaalka ku soo hartay arinta federaalka waa arin u baahan taxadarkeeda arin u baahan waay madaxweynaha afkiisa wuxuu ka yiri waxa la igu doortay dastuur federaal ayaa la igu doortay yiri haddaan ka horjeestana macnaheedu waxay tahay in madaxweynimadiisii ay question galayso waa lagu kala duwan yahay arinta federaalka aniga waxaan aaminsanahay is-aamin darro iyo isriix ayaa meesha yaalay inaan meel loo kala soconin magaalada New York waa hal magaalo state of New York and New York City
magaalada New York City habeenkii waxaa seexata 15 million people habeenkii dadka degan waa 15 million ayaa magaalada New York habeenkii seexata hal mayor ay leeyihiin hal police chief ay leeyihiin twice the number of the Somali population put together ayaa New York habeenkii seexata subaxdii markaas soo kacdina wax is haystay iyo wax is ciirsanaya ma arkaysid marka soo gaabay baa lagu yiri jawiga hadda ku sugan yahay federalism okay laakiin niman yahow waxa la akhriyo ummadda hal isku keeno anigu inta New York joogay wafdiyo Addis Ababa iyo Nairobi iyo Uganda iyo oo qudbeenaya waan dhageystay waxyaabaha ay ku hadlayaan mararka qaarkood madaxa ku dilaacaya iyo marka ninka Soomaaliga u timaadid suud buu qabaa halku taagan yahay cirku fiirinaya darbaxsho ma ku dhufataa ku qabanaysa ma fahmaysaa the whole world asaga yani waa feelingkii runtii qiyaasta miisaankiisa waa miisaankii xilligii jaahiliyadda ninkii noolaa ma uu aaminsanayn in adduunka lagu jiro adduunka dhan asagoo ka bilaabanay asagoo ku dhamaanay marka maxal ninkii ciisaha oo la yiri Mareykanka iyo gaalada iyo niman ba isguursaday oo yiri waa isdooxi lahaa aniga hadaan adigaas joogi lahaa marka shakhsiga Soomaaliga ah haddii maanta la darso waxa uu aaminsan yahay iyo waxa ku jira iyo environment-ku ku jira isma lahan marka hurdada aan ka kacno oo wadankan dad buu u baahan yahay rajana ma jirto haddaad rajo been isku sheegaysaan tuulo u geli karta ma lahan waxa maxaa qaad afgooy xamar ayaan xaafad aqoonin dhuusamareeb beledweyne gaalkacyo garoowe burco berbera gedo kismaayo baydhabo isma yaqaanaan eachna waxaa hubkiisaas ugu daadsan yahay marka aqliga ah taangi Ugandhes intaan galo aan waxaan leeyahay Hillary Clinton baa ictiraafto walaa rajaa jirta meel aqligaas ka soconaya ma garanayo aniga marka yani nimanka baarlamaanka ah waan rajeenayaa in ay hurdada ka kacaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Ingiriiska waxay leeyihiin House of Commons speaker uu leeyahay speakerka wuxuu madelaa shaqadiisa ugu weyn speakerka waxa waa the interest of the king why it's the interest of the people ma ahan House of Speaker kiiba iska fikirey boqorkii u tagay wuxuu yiri boqorow from today aniga waxaan rabaa I want to represent the interest of the people not the interest of the king boqorkii wuxuu yiri war ma hubtaa wuxuu yiri yes waa hubaa boqorkii intuu wax kale ka sugay wuxuu yiri war ninka kaxeeyo qoorta ka gooya meesha laga jira madaxa laga soo jaray marka qofka waxa uu mesela waxa uu aamino waxa uu irsaaqdo waxa uu ku seexdo waxa uu ku soo kacayo waa wax uu hadhowti Ilaahay kula xisaabtamayo ama qabiil ku seexo ama ku soo kac ama ani dhac oo jaakada iga furo ama inta suud gasho barafka inta istaagto waxa iska dhigtaa in cirku dhulka lahaay wixii ku seexata ku soo kacda aduu Ilaahay aqro kula xisaabtan wadankan dad u baahan yahay marka hadii aan wax qalada ilina iga raali ahaada martidana waa soo dhaweynayaa salaamu calaykum libaanada ay ka yihiin Cabdi Barre Yuusuf Jibriil iyo Dr. Cabdi Casiis Sheekh Yuusuf waxa ay ku socdaan wadadii farxadda iyo rajada galbeeyta 20 sano Soomaaliya ma arkin haddana uu socdaa marka Cabdi Barre aan iraahdo Umar Jamaal niyo uu jooga dalkana si fiican uguma uusan kurgelin laakiin wasiirka arrimaha gudaha iyo maaliyaddu maanta garaway joogan nabad bay ku dhaxmareen aaski qaran bay ka qayb galeen oo Sheekh Cabduqaadir boosaasay marayaan gaalkacyay tagayaan cid hortaaganna ma jirto xildhibaanaduna waa iga marqaatay marka rajadayadu way fiican tahay macnaheedu ma aha inaan Umar Jamaal ka soo horjeedo laakiin marxaati baan haystaa telefishinka qaranka fiirsada